kulan wanaagsan daawadayaasheenna aanu jecelnahay kuna soo dhawaada warbixin kale oo xiiso leh oo aynu ku sharaxayno indhasarcaadyada ugu cajiibsan ee aad loo daawaday. indhasarcaadka koowaad, madax keligiis iska soo dhacaya haddana qofku uu nool yahay oo uu soconayo. indhasarcaadyaha ayaa inta uu masraxa soo fuulo dadweynaha iyo guddiga garsoorka hortooda hal mar tusaya madaxiisa oo soo dhacay. qof kasta naxdin iyo ama kaag ayaa isu raacaya. wax arinta lagu tilmaamana waa la garan weynayaa. waxaan indhasarcaad ka weyneyn tolow ma madax gacanta lagu waday ayuu ahaa. laakiin ninkii uu madaxiisu soo dhacay inta uu dib madaxa booskiisa ugu celiyo ayuu dheelayaa oo uu faraxsan yahay. sidee waxaana loo sameeyay? waa xeelad cajiib ah, laakiin aan ku sharaxo. sirta ay xeeladani ku tiirsan tahay waa jaakada uu xiran yahay indhasarcaadyuhu. sidee bay ugu tiirsan tahay? indhasarcaadyuhu waxa uu soo qaatay 2 qori oo adag ama caag. kadib inta uu isku dhajiyay ayuu qoorta gashtay isaga oo garbaha ka ritay. kadibna waxa uu ku dul gashtay jaakada uu ku labisan yahay. kadib waxa uu sameynayaa in uu 2dii qori inta qabto oo uu kor u riixo oo ay jaakadiina xoogaa kor u kacdo ayuu qoortiisa ama luquntiisana hoos u soo raaricinayaa. kadibna waxa uu u ekaanayaa in uu madaxiisa soo riday. si aad u sii xaqiijisid in jaakada uu ku hoos qariyay 2 qori ama caag oo uu jaakada ku tiiriyay, fiiri halkan dhabarkiisa ah marka uu kaamirada ka sii jeesto. indhasarcaadka labaad, xeelad indhasarcaad oo ku saabsan sigaar si la yaab leh loo maareynayo qarintiisa iyo soo bandhigidiisaba. xeeladda indhasarcaadka uu ninkani soo bandhigayo waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ay isku dayaan indhasarcaadayaal badan. indhasarcaadyuhu waxa uu haystaa xabad sigaar ah. wuxuu ku muujinayaa faraha 2diisa gacmood. kadib xabadii sigaarka ahayd ayaa qarsoomaysa oo meel ay ka baxday la weynayaa. ilbiriqsiyo kadibna waaba isla sigaarkii oo faraha uu ku hayo. xagee markii hore aaday xabadii sigaarka ahayd? sidee loo sameeyay xeeladan cajiibka ah? jawaabtu way sahlan tahay. si fiican u fiiri. marka hore sigaarku waxa uu gacantiisii ugu qabtay qaabkan. kadib gacantiisii waxa uu ugu qariyay qaabkan kale. waxa ugu muhiimsan ee uu u baahan yahay indhasarcaadyuhu marka uu xeeladan sameynayo waa in uu gacantiisa ku qariyo sigaarka isla markaana si boobsiis ah uu wax u sameeyo. waa un intaas oo kaliya. indhasarcaadka saddexaad, dab laga shiday kabriid ama taraq oo noqday qooley nool. waxa dad badan oo daawadayaal ah iyo kuwa garsoorkaba ay la jahwareereen ayaa ah sidee qof uu dab uga dhigi karaa qooley. waa arin cajiib ah oo xiisana leh. dadka qaar ayaaba u qaata in ninkani uu adeegsanayo sixir dhab ah oo waxani ay yihiin wax indhasarcaad ka weyn. laakiin waa xaqiiq, ninkani ma aha sixirow ee waa indhasarcaadiye gaamuray oo aad u tababaran. sida uu xeeladan u sameeyayna waa habkan soo socda. marka hore kabriid ayuu daarayaa. inta uu kabriidkaas holcayana wuxuu indhasarcaadyuhu ka faa'iideysanayaa fursadaasi oo ah midda ay xeeladiisu ku tiirsan tahay. jeeb ugu samaysan gudaha jaakadka uu xiran yahay ayuu si dhaqso ah uga soo saarayaa qooley halkaas ugu qarsanayd intii uusan masraxa soo gelin. dadka markaas daawanaya way ku adkaanaysaa in ay ku baraarugaan khiyaanadaasi uu sameynayo sabab la xiriirta holaca uu shiday iyo sida boobsiiska ah ee uu qooleyda uga soo saarayo jaakadiisa. laakiin haddii aanu yareyno socodka fiidiyowga waanu fahmi karnaa sirta iyo sida uu xeelada u adeegsanayo. waa kan muuqaalka oo aanu socodkiisii gaabinay, bal si degan u daawo. indhasarcaadka afraad, xeelada gabar la gelinayo sanduuq oo sanduuq kale lagu dhex arkayo ilbiriqsiyo gudahood. dabcan qof kasta oo daawaday muuqaalka indhasarcaadkan aad ayuu ugu jahwareeray heer ay dadka qaar u qaateen in waxa ay arkayaan ay riyo maalmeed yihiin oo aysan xaqiiqo ahayn. sababtoo ah indhasarcaadyuhu waxa uu gabadhani ka soo dhex doortay dadka daawadayaasha ah ee fadhiya masraxa, weliba si aan kala soc lahayn. mana ahayn gabar ka mid ah kuwa caawiyaasha ee la socday indhasarcaadyaha. markii koowaad warqad uu duuduubay
ayuu ku dhex tuuray kasoo qaybgalayaasha bandhigga. warqaddii ayaa gacanta u gashay islaan daawadayaasha ka mid ah. wuxuu ka codsaday islaantu in ay dhibic ku qorto mid ka mid ah lambaro warqadda ku duldhigan. kadib qaabkan ayay islaantu qoraalka ugu dhigaysaa warqadda. lambarka ay dhibicda ku dul qortay wuxuu noqonayaa lambarka kursiga ay kaga fadhiso gabadhaas ka qaybgalayaasha ka tirsan. gabadhaas sida nasiibka ah lagu doortay ayuu gacanta qabanayaa oo uu masraxa la soo aadayaa si uu indhasarcaadkiisa u bilaabo. kadib sanduuqaasi ayuu dhexgelinayaa qaabkaas aynu arkayno. dabadeed wuxuu isku xiriirinayaa laba barees oo shixnadaysan. waxaa xiga labadii sanduuq ayaa daah kusoo fidsamaya oo way daboolmayaan. markaas ka bacdi waaba gabadhii aan ku jirin sanduuqii la geliyey kana soo muuqanaysa midkii labaad ee faaruqa ahaa. qof kasta oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha iyo guddiga garsoorka ayaa fajac afka la taagaya. qof kastana waxa uu isweydiinayaa sidee ku dhacday arrintan, sidee loo sameeyey xeeladan cajiibka ah, annagoo og in gabadhaasi lagu soo doortay si aan kala soocasho lahayn oo ay ku timid nasiibka lambar la doortay. sirta haddii aan kuu sheego, marka koowaad gabadhan ma aha gabar si caadi ah barnaamijka uga soo qayb gashay, ee waa mid ka mid ah caawiyaasha indhasarcaadiyaha. laakiin sidee ku dhacday in isla iyada la doorto ayadoo warqadda dadka lagu dhex tuuray qof aan sheekada ka warqabin ay gacanta u gashay, kadibna ay dooratay lambar ayadoo aan fiirinaynin? aan ku sharaxo. lambarka booska ay gabadhu fadhiso mar hore ayuu soo calaamadeeyey oo uu ku soo calaamadeeyey warqadda. kadib wuu soo duuduubay, dadweynaha ayuu ku soo dhex tuuray. markay islaantu qabatay warqadda, si fiican u fiiri meesha uu soo calaamadeeyey, faraha iyo suulka ayuu ku hayaa oo uu ku qarinayaa. marka uu islaanta faray in ay warqadda soo calaamayso, wuxuu u dhiibay qalin aan qad lahayn, micnaha aan waxba qoraynin. islaanta oo aan waxba ka ogeyn arrinta ayaa warqaddii gadaal geysay, kadibna sida in ay wax calaamadaynayso qalinka ay ku xariiqday soona celisay. maadaama uusan qalinku waxba qoraynin, isla lambarkii uu horay u soo calaamadeeyey ayuu dadka uga dhigay in ay islaantu soo calaamadaysay. qaabkaas waa qaabka lagu doortay isla gabadha caawiyaha ah. arrinta kale ee ku saabsan gabadha oo labada sanduuq isaga kala gudbaysa, sirtu waxa ay tahay saaxiibkaygiyow, gabadhan marnaba sanduuqa kale uma gudbin, keliya isla sanduuqaas ayaa si xariifnimo leh loogu dhex qariyey. gabadha sanduuqa kale ka soo muuqatay waa gabar u muuqaal iyo labis eg gabadha hore ee sanduuqa lagu qariyey. si aad hadalkaygu u xaqiijisid, si fiican u fiiri timaha gabadha qaabka ay u soo shanlaysatay, haddana si fiican u fiiri timaha gabadha kale sida ay u shanlaysan yihiin. gabadha hore timaheedu toos salaax uma ahan oo duuduub yar ayaa ku jira, laakiin gabadha labaad timaheedu waa salaax oo wax duuduub ah kuma jiraan. dharka ay gabdhuhu ku labisan yihiin si fiican u fiiri baraha yaryar ee shabeelka ah, midab iyo qaab ahaanba barahaasu way kala duwan yihiin. tani waxay noo xaqiijinaysaa in waxa indhasarcaadkani loo adeegsaday ay yihiin laba gabdhood oo aysan ahayn hal gabar oo keliya. indhasarcaadiye kusoo lugaynaya dabaq sare dushiisa isaga oo kusoo soconaya derbiga jaranjaro la'aan. sidaan horey idinkugu soo sheegnay, indhasarcaadku waa xeelad iyo farsamo, laakiin u baahan in wax badan uu qofku tijaabiyo oo uu ku celceliyo si marka dambe uu u gaarsiiyo heer la aamini karo. daynaamo waxa uu soo bandhigay indhasarcaadkan isaga oo dabaq dheer derbigiisa kusoo soconaya, weliba isaga oo aan haysan jaranjaro ama qalab kale. dadweyne halkaas joogay iyo kuwa hareeraha lugeynayay ayaa daawanaya iyaga oo yaaban, isla markaana isweydiinaya sida ay arrintani caqligal ku tahay. isaga oo dabaqa fiidiisii si qumaati ah u taagan ayuu hal mar isu soo daynayaa. kadib naxdin ayaa haraysay dadkii daawanayay. daynaamo waxa uu bilaabayaa in uu derbiga kusoo lugeeyo oo uu kusoo socdo sida qof dhulka ku socdo oo kale. dadka qaar si ay mucjisadan indhahoodii ugu arkaan way soo ordayaan si ay dhismaha ugu soo dhawaadaan oo ay u xaqiijiyaan aragtida indhasarcaadkani waxa ka runta ah.
sidee nin ugu socon karaa sar isaga oo aan jaranjaro ku soconin? sidee suurtagal ku tahay arrintan? qof kasta su'aalo muhiim ah ayaa maskaxdiisa ka guuxaysa. saaxiibada isla taagan way iswareysanayaan, balse ay jawaab uga helaan waxana ay indhahooda ku arkayaan. ma xaqiiq baa? ma run baa? ma wax kala? intaas waa indhasarcaadka Dynamo uu soo bandhigay. laakiin sidee loo sameeyay? aan ku sharaxo. Dynamo wuxuu xeeladan u adeegsanayaa laba xarig oo uu indhasarcaadka ugu talagalay, kuwaasi oo ku xiran mashiin ku rakiban dhismaha dushiisa. xarguhu mid dhabarka ayuu ugu xiran yahay oo dhexda ayuu u celinayaa, labada kalena labada lugood ayay u hayaan. mashiinka ayaa si nidaamsan ula shaqaynaya hab socodkiisa. waayahay maxaa xargaha loo arki waayay? waa su'aal kale oo meesha iman karta. xargaha lama arki karo dhowr sababood dartood. waxaa ka mid ah xilliga uu indhasarcaadkana jilayo waa xilli habeen ah. xarguhu kama samaysna ama ma laha midabada asliga ah sida buluug, cagaar, guduud iyo waxa la midka ah. muuqaalka hawada si fudud loogama sooci karo midabka xariga dartiis. xarguhu waa mechanism. waxa ay la shaqaynayaan socodka qofka indhasarcaadiyaha ah qaabkan oo kale. marka uu dhulka soo dego, si dhaqso ah ayuu u riixayaa gaanjo xariga kula xiran, kadibna xariga ayaa si fudud u fakanaya sida laastiga. isna si aayar ah ayuu dhulka isaga lugaynayaa iyadoo aysan dadku dareemin in uu xarig ku xirnaa. tan kale, dadka tirada badan ee meesha jooga qaarkood waa kuwo la shaqaynaya indhasarcaadiyaha oo la jilaya sheekada, taasoo suurtagelinaysa in dadka kalena ay aaminaan xeeladda. gabagabada, muxuu yahay qodobka loo adeegsaday xeelad cajiib ah oo warbixintan ku jirta? fadlan aragtidaada nala wadaag. haddii aadan weli muuqaalka like saarinna, waxaynu kaa codsanaynaa in aad hadda saartid like si ay dhiirigelin iyo xamaasadba noogu noqoto. waan rajaynaynaa in aanu aragtidaada arki doonno.